الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. haddaynu ka soo warannay dhibaatooyinka ka hor imanaya dadyowga ama bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadannada reer galbeedka, waxyaabaynu xalka u arkaynay koowaad baynu tilmaamnay oo ahaa in dadkaasi isku dayo inuu midoobo oo waliba soo jeedinayna inuu ku midoobaan maraakistooda islaamiga ah. qodobka labaad aan tilmaamayna waxa weeyaan dadkaasi inay sii jiri karaan waxa ay ku xidhan tahay inta la ilaaliyo guriga ama usrada ama reerku ama gurigu aabaha iyo hooyada iyo caruurtu waa unuga ugu yara bulsha ka kooban tahay. ummadda Soomaaliyeed ee wadannada tantimi waxaad moodaa wixii kale ay haysteen ee unug yahaayoo dhammaan inay hore u soo dumeen, kii dowladnimo, kuwii ka hooseeya qabiil, kuwii ka hooseeya gobollo, wax waliba inay ka soo dumeen. unuga ugu dambeeya ee cid walba gacantiisa ku soo hadhay waxa weeyaan unugii guriga, aabbo iyo hooyo iyo ubadkay wateen. waxaan leenahay waxa koo labaad aynu u baahanay galbeedka markaynu joogno inaynu xoog u ilaalinaa waa badbaadinta aynu badbaadinayno inaanu burburin qoyska Soomaaliyeed ee dibadda jooga. ishaysiga ama wada socodka qoysku wada socdo ee dhan u wada jeeda waxay tilmaam u tahay ummaddaas inay tahay ummad isku xidhnaanteeda bulshadu fiican yahay oo horumar samayn karta isku xidhnaana. ummad kasta oo qoysaskeedu burburaan waa astaan ka digaysa bulshadaasi inay sii burburayso oo hoos u sii socoto. waqtiyadan dambe aynu galbeedka nimi waxyaabaha Soomaalida ku soo kordhay waxaa ka mid ah burburka qoyska oo laga yaabo sababo badan inay keeneen. waxaa dhacda in furiinku aad u tiro batay, qoysaska kala nool ay aad u tiro badan yihiin, caruurta halka waalida quri u hayaa aad u tiro badan yihiin, ama caruurta labada waalidba ka tagtay ay aad u tirada badan tahay. waxaa muuqata galbeedka dhibaha ugu tiro badan leh inay ka mid tahay Soomaalidu burburkooda qoys inuu ka tiro badan yahay burburada qoys ee dadyawa kale. mararka qaarkood marka aynu ku darro weeyaan burburka beenbeenta ee lacagta lagu qaato ee Soomaalidu ay ku sii dartay oo ah separationkii nidaamkii wadanadan galbeedka ka jiray oo loo maray si hunguri loo helo. waxaynu u baahanay markaas haddaynu rabno bulshadani inay sii jirto unugeedii koowaad oo ah reer ama qoys sidii loo ilaalin lahaa inaynu u xaydxaydanno ama aad u tijaabinno. qoyska ilaalintiisa Soomaaliya markii la joogay qoys waliba wuxuu deganaa inta badan bii'adii iyo reerkii iyo dadkii uu ka soo dhex jeeday buu dhex deganaa. waxaa jiray deegaankaasi waxa ceeb ah oo dadku ka wada yaqyaqsoodo oo aan qofku keligii samayn karin. waxaa jiray deegaanku dad waaweyn oo waaya araga oo tala bixin badan bixin jiray. inanta la qabo, hooyadeed, eedadeed, habaryaraheed, ayeeyooyinkeed, dad badan oo tala bixin siinayaa jiray. inanka dhallinyarada ee guursaday dad badan oo adeeradii, ilmaadeeradii, walaaladii ka waaweyn oo tala bixin ku kordhinayay baa jiray. waxaa jiray qoysasku si ay isugu xidhnaayeen oo sababaysay isagoo la xeerinayo isku xidhnaashiyahaasi inaanu soo degdegin furitaanku. galbeedka markii la yimi waxaa dhacday reer waliba keli inuu noqday, la isku indhabatay, muranku tiro batay, cid xallisho la waayey, dabeetana ay fududaatay kala tagii iyo qoyska burburkiisii. arrintaasi waxay u baahan tahay inay xuluul aad u waaweyn. xulusha cidda koowaad ee ku kici karta waxaan u arkayaa inay ka mid yihiin Islamic Centersku, maraakista islaamiga ah, iyagoo qabanaya dhowr shayba. kow, iyagoo ah dadka matalaya
kuwa qur-aanku sheegaya xakaman min ahliha wa xakaman min ahli dad maanta haddaan qaraabo reerka halka loogu haynin waa inuu noqdaa markaska islaamiga duqaytida waa yeelka iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo culamada joogtaa dadkii samayn lahaa tala bixinta dadka muransan ama dhalinta yaryar ama da-da yar ama mushkilaadka qoysaska dadkii xallin lahaa inay noqon karaan waxaan kaloo tilmaamayaa inay yihiin dadkii samayn kari lahaa inay dadka ka saaraan al-ummiya diiniya waxyaabahan waxa sababay waxaa ka mid a baynu leenahay dadka oo dhaqankoodii diineed ummi ka noqday ama jaahil ka noqday marakista islaamiga waxay samayn karaan inay bixiyaan koorsooyin cilmiya oo la siiyo inanka iyo inantu intaanay guursaninba la baro qoyska iyo mas-uuliyaadkiisa la baro laba qofoo kastoo muslimiin iyo qaabkay u wada noolaan kari lahaayeen la baro nolosha markay dadku isku darsadaan waxyaabaha cusub ee ku soo kordha ee u baahan in xalka loo raadiyo waxaan leenahay waxa uu samayn karaa hooyada in wax la baro gabayaagii axmed shawqi la odhan jiray masriga ahaa baa gabayadiisa waxaa ka mid ahaa waida الnisaءu nasha'na fi umiyatin radaca الrijaalu jahaalatan wa khumuula wuxuu yidhi hooyadu haddii ay uminimo ku korto aqoon darro hadday hooyadu ku korto naaskeeda raggu aqoon darro iyo doqoniimu ka nuugaa buu leeyahy yacni waxa uu tilmaamayaa hooyadu inay tahay guriga wixiisa rasmiga ah hadday aqoon-yahanad islaamiya tahay oo dhaqankeeda iyo diinteeda iyo aqoonteeda islaamiga ay si fiican u garanayso inay wax badan ka tari karto gurigaasi jiritaankiisa sidaa awgeed waxaynu leenahay badbaadinta guryuhu waa inay noqotaa shayga koowaad ama labaad ee ay ka fakari karaan dadyowga dabadda ku noole in la badbaadiyaa waxay u baahan tahay inuu helo qoysku meeshuu tala bixinta ka heli lahaa meeshuu cibaadada ka heli lahaa meeshuu waxbarashada ka heli lahaa meeshuu ka heli lahaa relationshipka dadkii kale uu ka xidhmi lahaa ee uu wakhtigiisa iyo noloshiisa la qaadan lahaa taasina waxay u baahan tahay baynu leenahay inaynu si fiican u dhisanno santarada islaamiga aynu u baahannahay ee qaban kara shaqooyinkaasi tirada badan le aynu tilmaamayno wabilaahi towfiiq